Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garbahayga oo kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa YouTube aan naga daawaneysano Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa isla aniga walaashan Xafsayd soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suuban Allah idin siiyo insha Allah waxaa idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin aniga waa fiicanahay alxamdulillaah waxaa inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gudgalin darsigeeni caawa ugu horeyn haddii ay tahay marka ugu horeysa aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogto like saar u share garee asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo oo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 47 biidnillah bismillaah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة النبي nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu dhahay qofkii wado qaada isaga oo raadinaya cilmi ilaahay wuxuu u fudaydiyaa wadadii jannada lagu gali lahaa qofkii wado qaada isaga oo raadinaya cilmi ma ahan cilmiga maadiga iyo wixii lamida waa cilmiga shareecada oo bartaa axaadiista iyo fiqiga iyo wixii lamida qofkii bartaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u fudaydiyaa wadadii jannada lagu gali lahaa yacni waxay ka dhigan tahay cilmiga diinta oo la bartaa ayaa waxay sababtaa in janno lagu galo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahmi doontaan guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawashada muuqaalkayaga waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saartay haddii aad hore noo joogtana usii share garee asxaabtaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh